hay'adda samafalka ee Somali Relief and Development Organization oo ah hay'ad gacanta ku haysa qoysas badan oo agoon sidoo kalena ka shaqeysa howlaha samafalka ayaa qoysas agoon gaarsiisay xoolo iyo lacag ku wajahan Ciid al-Adha waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay Kayse Cabdi Cali Qodax iyo Sheekh Saciid Cabdi Xuseen oo kamid ah howlwadeenada hay'adaasi. maanta way taariikhdu tahay 10kii Dhulxijja 1438 waa maalin ciid ah waa Ciid al-Adha goobtan aan ku sugannahay waa magaalada Ceergaabo taariikhda miilaadiga oo noqonaysa kowdii bishii 9aad 2017 halkan aan ku sugannahay saaka waxaanu halka kan ugu qaybin doonaa ku guddoonsiin doonaa qoysaska agoonta ah ay hay'addu magaceedu uu yahay Somali Development Organization oo ah hay'ad muddo tabarucaad iyo kaalmo ku soo sameeysay qoysaska kan ubadkooda haday tahay dhinaca barista Quraanka Kariimka iyo haday tahay arrimaha diinta iyo haday tahay taakulaynta oo ay bishii dhaqaale joogto ay siiso hay'adda oo runtii sidii aad horeba u arki jirteen shaqadeeda ahayd ciidaha ka farxin jintay agoonta tan kulankan arrintaas ku saabsan yahay sida darteed waxaan marka ugu horeysa u ducaynayaa halkan uga ducaynayaa walaalaha muslimiinta ah ee deeqdan ku soo deeqay ee agoonta tan taakulada mar walba wixii awoodooda soo gaarsiinaya waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro meeshaad ka soo saarteen wax run haydin ku bedelo Ilaahay ha idin ku xifdiyo ubadkiina iyo maalkiina iyo oriyihiina fi aakhirna Ilaahay idin ku liibaaniyo sidoo kale waxaan iyana u ducaynayaa howlwadeenada hay'adda oo run ahaantii aan oran karo waa madaalayaal shaqadii ay u kaceen oo Ilaahay dartii ugu kaceen runtii sidii ay ahayd iyo si ka wanaagsan buu qabanaya iyagana sidoo kale waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin ku daro Ilaahay fi aakhirada idin ku liibaaniyo Ilaahay wax kasto aad ka cabanaysaan haydin boogadhago umurihiinana Ilaahay haydin wada fududeeyo sidoo kale waxaan iyaguna runtii kelmad oran doonaa waalidiinta ubadkan dhalay oo runtii iyaga laftigoodu dadaalkii iyo waajibaadkii saarnaa wax badan gutay iyagana waxaan leeyahay waa inta aad kala soo dhawaataan dadaalka halka ka sii wada agoonta oo ay hay'addu gacanta ku hayso ay halka kan wax ku barto iyagana run ahaantii way jiraan caruur Quraanka Kariimka dhamaysay oo dhawaan sida aad aragteen xaflad hay'addu ay u qabatay kuwa dhawaan dhamayn doona insha Allah iyagana waxaan Ilaahay uga rajeynayaa in ay noqdaan ubad barakaysan oo khayr qaba oo waalidkood iyo diintooda iyo dalkoodaba afaca waxaan aad ugu mahad celinayaa iyadoo Ciid al-Adha aynu joogno 1438 hijrigii bishii 12keedii waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal Ilaahay a'maasha wanaagsan inaga aqbalo a'maasha wanaagsan kuwa ugu waaweyn waxa kamid ah in dadka agoonta la garab galo nabigu wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi wa kaafil yatiimi ka haateen aniga iyo ka agoonka kafaala qaata saasaan isku nahay macnaha jannada ayaan wada galeynaa Ilaahay dadkii hantida jeebkooda ka soo bixiyay iyo dadkii ka soo qaaday iyo dadkii ka qayb qaatay dhamaantood Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiinaynaa dambi dhaaf iyo inuu miisaankooda xasanaadka ku cusleeyo waxaynu insha Allah u qaybin doonaa ariga dadka agoomaha ee loogu talagalay iyadoo ardaydii ay joogto oo quraankii qaybtooda dhamaysay qaybtooda ay dhowdahay mashruucaas wuxuu noqday marka mashruucaad loogu guuleystay Ilaahay haydin barakeeyo waan leeyahay hawshan aynu halka ka sii wadno xaqil ciidkiina insha Allah hadda ayaan u qaybinaynaa intii aad u soo dirteen oo billaah tawfiiq ma markii ugu horeysay oo ay deeq noocan oo kale ah hay'addu guddoonsiiso qoysaska agoonta ee ay gacanta ku hayso Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Ceergaabo.